anigu caruur curdinaanaho ciladaha dunida cilmi uma lihiye adigoon canaan cadhaygula dhicin bali caawiyo cirsigaadan cududka rabaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan. waynu kala baahnay kusoo dhawaada barbaarsama channel oo aan ku leeyahay mar walba kasoo mid noqo bahda barbaarsama channel. haddii aad hore uga mid ahayd bahda barbaarsama channel aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay. haddii muuqaalkan yahay kii kuugu horreeyna kasoo mid noqo oo nagu soo biir oo kusoo dhaweyneynaa. muddo dheer ayaa halkan isku keen dambeysay sidii aan horeba idinku sheegay. haddii aad doonayso inuu ilmahaagu wax walba kaaga warramo, haddii dhib soo gaadho uu kuu sheego, haddii farxad soo gaadho uu kuu sheego, haddii howlaha iyo arrimaha kale ee culeysyada kale ee nolosha ee kasoo wajahaya asxaabtiisa, dadka uu yaqaano, iskuulka iyo meelahaas aad noqoto qofka ugu horeeya oo u sheego, waa inuu adiga kaa arko. haddii laakiin uu maalin hadal kuu sheegay oo uu tidhaahdo ceeb yaa yidhi waxaas, xaggeed ka keentay, yaad ka maqashay, ha soo hadal qaadin, wuxuu noqonayaa qof aan noloshiisa kugula soo dhicin waxyaabaha ku cusub. wuxuu maqlo, waxa lagu sameeyo, waxa lagu yidhaahdo iyo waxa maskaxdiisa ku wareegaya oo dhan, isagoo ka baqan inaad ku tirahdo ceeb lama yidhaahdo iyo lama soo hadal qaado. haddaba iska daa kelmadahaas oo kale oo dhegeysa ilmaha. maaragtay haddii dhabarku ku xanuuno, waxyaabo badan oo waxaa jira inagu koos gareeya. anigu dhakhtar ma ihi sidaad u ogtihiinba, laakiin waxaan idinla wadaagaa wixii aniga waayo aragnimadayda ahee maaragtay qof ahaan aan tijaabiyey. aniga maxay ahayday waxa aan ku shaqo leeyahay dhinaca tarbiyadda caruurta sidaa u ogtihiin, laakiin waxyaabihii intaasoo dheer dee wixii waayo aragnimadayda iyo maaragtay aan isleeyahay waa laga faa-iidi karayaa ayaan idiinsoo gudbiyaa. saasoo ay tahay waxaan doonayaa inaan idinku baraarujiyo waxyaabo yaryaro aad u maaragtay basiid ah oo haddana inaga waxina yeelaya. tusaale ahaan haddii aad madax xanuun fara badan leedahay oo kale, waxaa muhiim ah inaad u fiirsatid oo aad tijaabisid timaha sida aad u xidho. ma biinka ma xoog baad isugu giijisaa, mar walba ma xagga dambaad ka xidhaa, guriga markaad joogto ma sii deysaa timaha. iska ilaali inaad isku giijiso mar walba biinka halkaas lagu xidho. mirgiyada ayuu ku xanuunjinayaa oo mirgi xanuun buu kugu sameynayaa, waayo timihii mar walba saas bay u giijisan yihiin. mararka guriga joogto oo kale, maadaama markaan hagooganayna aan u baahanay inaan halkaas dib isaga xidhna timaha. guriga markaad joogto inta badan waxaad ku dadaashaa inaad timahaaga bilaabiin ka dhigto ama ay furnaadaan. waxaa kaloo aad u fiirsataa sida aad u xidhanayso khamaarka. ma aad baad isugu geejisa had iyo jeer, waayo isaga laftarkiisu wuxuu ka qayb qaadanaya waxyaabaha madaxaaga kicinaya haddii aad si xooga isugu geejiso mar walba. marka taas laftarkeeda u fiirso. maaragtay haddii aad madax xanuun leedahay ama margiye xanuun, haddii aad leedahay maaragtay qoor xanuun ama garba xanuun, muruqyadu had iyo jeer ku xanuunayaan, waxyaabo badan oo koosgareeya baa jira. laakiin waxyaabo yaryaroo maaragtay saan idiin sheegay aynaan dhaadanayn ayaan doonayaa iminka muuqaalkeennan inaan idinku baraarujiyo. kensheliga ama rajabeetada, hadba sidaad u taqaano, hadday noqoto mid aan ahayn seeskaaga ama kuleekayn oo marna kaa maaragtay haddii ay kaa weyn tahayna soo siibanayso oo xagga sare usoo kacaysa oo aan halkaas kuugu xidhmahayn, dhabarka si fiican u qabsanahayn, waxay keenaysaa inay dhabar xanuun badan iyo murqo xanuun halkan ah kugu keento. haddii ay tahay mid cidhiidhi ah oo aad kaaga yar oo meelahan kaaga geejisan ama dhexda oo kale kaaga geejisan,
waxay ku keenaysaa inay neerfuhu ku kacaan iyo inay maaragtay xoog kuu geejiso oo kale. Markaa u fiirso oo ku dadaal inay mar walba maaragtay kinshiligaad xidhanaysid uu noqdo mid adiga seeskaaga ah. dad badan ayuu ama dumar badan ayuu xanuun ku sameeyaa maaragtay kansarka naasaha oo kale. kinshiligu haddii uu cidhiidhi kugu yahay aanu seeskaaga ahayn oo mar walba maaragtay si xooga u maadaama meeshii dee ay naasihii murqan yihiin uu giijinayo, wuxuu ku keeni karaa cidhiidhi badan, xanuuno badan iyo maaragtay xanuun baa kaala soo darsi kara, murqa xanuun ama naasa xanuun, waxyaabahaas oo kale. taasna waa inaad maaragtay ku feejignaato oo aad u fiirsato inuu mar walba ay rajabeetadaada ama kinshiligaagu yahay mid seeskaaga ah. waxaa jira haddii aad qurbaha joogtid wax walba way iska fudud yihiin. dad baa jira waxaan ku shaqeeya oo kugu seeskaaga ogaanaya oo maaragtay haddii aanada isaqoonin halkaasaad u tegaysa waxaad leedahay isma aqaana seeskayga qiyaasa oo idinku maaragteen seeskayga ii hela. saasoo kale aad samayn kartaan haddii aad qurbaha joogto. haddii aad wadankii joogtana adigu dee kolba mid markaad isku eegtid kaad habbi ku dareemayso, cidhiidhina kugu ahayn, kaana balaqbalaqsanayn oo kolba dhinac u carar ahayn, ayaad insha allah maaragtay qaadanaysaa. haddii aad luga xanuun leedahay, kabahaaga mar walba waa inay noqdaan kabahaagu inay ka taxadiraan, inaad ka taxadirto. kabayoogu waa waxa inta ugu badan ee nagu keena luga xanuunka iyo ina maaragtay murqaha lagu hayna xanuunaan. waa idii sheegay waxay xanuuno badan oo murqa xanuunka keena baa jira, faytamin la-aan baa jirta, waxyaabo badan oo maaragtay sababo baa jira. laakiin anigu wixii aniga waayo aragnimadeyda ahaa ama aan idinla wadaagayay waa waxyaabaha yarare aad aanad islahaynba waxaas waxbay ku yeelayaan, waayo aniga isoo martay. anoon islahaynba maaragtay lug xanuun ayuu kugu keenaysaa kabta aad xidhan tahay, in laygu iraahdo kabtaada kabahaaga ma aha qaar kugu habboon, maadaama tahay dee qof shaqaynaya oo had iyo jeer ku lugeynaya kabihiyo ku soconaya, waa inaad kaba kugu habboon aad qaadato. ka taxadira markaas kabayowga maaragtay aan lugihiina ku habboonayn, waxay ku keenayaan dhibaato badan. murqa xanuun bay ku keenayaan, luga xanuun bay ku keenayaan, daal bay kugu samaynayaan, cirbahay ku xanuujinayaan. marka waa inaad marka ugu horeysaba ay luguhu ku xanuunaan intaana dhakhtarka iyo u tegin maaragtay waxyaabaha horta aad adigu iska bedeli karto. haddii mar walba maaragtay qoorta ku xanuunto, xataa meeshaad seexanayso ayaa ka qayb qaadanaysa murqahaaga caafimaadkooda iyo maaragtay jirkaaga inuu ama xanuun kugu yimaado ama aanu kugu iman. barkimada aad barkanayso ayaa xataa ka qayb qaadanaysa inay qoortaadu ku xanuunto iyo inaad caadi ahaato. intaana markaa maaragtay aanad dhakhtar u teginba, marka ugu horeyso waa inaad kabahaaga jeegarayso, barkintaada jeegarayso ma tahay mid kugu habboon, kabahaaga aad eegto ma yihiin qaar kugu habboon, maxay haydey dharka aad xidhanayso ma yihiin qaar kugu habboon, ma qaar dhexda xoogkaaga qabanayaad xidhataa, ma surwaalaad xidhataa, maaragtay ma waxaad u baahan tahay markasta haddaad toob xidhan tahay ama wax isku sidaysa xidhan tahay xataa jirkii dee wuu balaqbalaqleynaya, isaga laftarkiisa xanuun kugu keenaya, murqa xanuun kugu keenaya. marka waa inaad giijiso. haddii aad surwaal xidhato waa inaanad isku geejino mid dhexda kaa haynaya mar walbo oo maaragtay maxoogii dhexda ku xanuujinaya aanu noqonin. waa inaad maxayda u fiirsato khamaarka sidaad u xidhanayso, saan iminka horeedii ku sheegayay, biinka saad isugu xidhayso waa inaad u fiirsato. waxyaabahaasoo dhan markaad iska jeegarayso. haddii markaa dee wixii aad u caalweydo ood aragtay inaanay intaba ahayn, dee marka waa inaad dhakhtar si deg dego ugu tagto. aad meelaha maaragtay physioterabiga ama murqaha ku shaqa leh ama madaxa dee dhakhtarka ku shaqa leh ama dhakhtarkaaga waa inaad aado. laakiin waxyaabaha yaryari waa waxyaabo marka ugu horeysaba u baahan intaanad dhakhtar tegin inaad adigu ku baraarugsanaato ood iska jeegarayso. maadaama hooyooyin badan oo maaragtay madax xanuun ka cabanaya, diiqad ka cabanaya, luga xanuun ka cabanaya aan mar walba arkayo, xataa commentkiina ay ka mid tahay. maxay ahayd intaasan doonaya inaan idinku baraarujiyo.
tan iyo muuqaal dambe inta aynu isugu imanayno waxaan idin leeyahay barbaarsamo channel share gareeya kusoo biira like-ta ha ka hilmaamina waayo anay tahay dhiirigelin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.